كأهو ما حد رفع الدلة انت كبدا انه قادكو حرام هي وإن قتلكو يهي عافنا كذا ولكن جعل كأهو كقول بهذا ونشتقاتك إيا استعمال كيسا وكأكانشو أكأكاتي شيطان إلى عادهم أو حرام قفك عاقل كاهنا وكان كبير نفسيسا وحي بالأكين كراه الدين إلى آخرة والله ونشأ أبي أقارنتاي انت يدون توا حجاجه أجاسنا والإيمان شكنا كل شيء امرنا ودمان نرشنا إيا عاطنات كذا إيا ما كاونا وأمانه وألقوا بيتي كلنا ضمانا أنا كوكب القشة وحجر رسولك صلى الله عليه وسلم لا تزول قدر عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلى، وعن شبابه فيما أفلى، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه البخاري ومسلم. كبقاتنا دوت محشرك فقارها الإسبوع كان جانب منك ما ينتقي عنها جهل الوزية علم ذي سيوفه كل يستوي بل يرمي ذي سيوفه كقاتي علم ذي سيوفه كفري يسيد وعمل علي إذا مالك سهلك وككس فري إذا وحى وكبحيي ولك يجعلك أهو توس أو استبيب أو راء قرانك يسونا الظاهر كأه أو برد انت كن عمل فل أو هنين جمع كان الشلي وحي هدو كذا دعي هري كان طلب الله هي إنه قوة ويه إنها تكدوكتو قادك أو عزمية يبوان أبكا قادك يوصن كقادنه الدنيا آخرة ورسو مقادة الإبراد ورسو كومة بالتعرض بل إنها الأقلية هنا تلك أو سمئية عبادة كدناشو واسدا أنكو أركهاتا أدوكو قبل وليوفدو أو تلك كدد أيام بدأ رئة halka kumaasili wadaday adoorkuna bilaabay inuu kucuno ilaah la fadlalay aad noqotay sidaa awgeed baan kuu dardaarmay walaalow oo naftaada khayr u hormarso oo saad u qaado safarkaaga aakhiro oo ka baq mugdiga qabriga walaalkayow u toobadkeen alle oo u noqo dhibaato kuugu filan haddii uusan alle kuu dhaafin wixii hore kaaga dhacay waad ku dheeraatay ku caafinta alle walaalow ajiib weerida rabbiga inaad u toobad keento oo aad u noqoto kana har dembiyada iyo falalka xun oo dhan alla wuxuu yiri jalla wacala عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله والذين آمنوا معه بين أيديهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من بان كسعد قفك قادك إيدية إيا قفك ككرية أما فيها من وكو إيبسده أما ككرية أما فيها جديد وكو قاطه سيدا جاري أما زيارة أما الدون إلى وحنا منها ولكن المسلم كأخوه وحامل بإمتحان كان قار كم جناح كذا أجع المهن كتعال دارين هير أيضا أجرين هديء حرام قصر قلائي هديء كلابا مركز وحي دبكينا إيا دبكينا بأكينا قاد أو بعشراء جليان لكن وحا لغا يابا إن قاركو أي جاهل كيهين حكم كيسا إيا وحي دين في إسلامكو كقبت إيدين كيسا ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحي وحرام شيء وحي كسب الله يهلانا وحرام سيدا درتد إلا ذنو الشراقاتك وحرام يعني ملكي أبو حكي إيبسي
ama aad gaadiid ugu qaadid ama aad meel ka keensid uu ku iibsado qaadka amaba aad siisid waxaad ku taageertay kii idin wey dembi falxun iyo shar warhoydadow kasabka iyo ka shaqaynta qaadku waa xaaraamtana alla ma barakeeyo wuxuu yidhi nabigeeni sala allahu calayhi wasalam addoonku maalkii xaaraan ah uu kasbado biilka uu ka bixiyaa baraka ma leh haddii uu wax ka sadaqaystana lagama aqbalo haddii uu ka dhintana waa sahay iyo saad naareed waxaa la weydiiyey nin ka mida saalixiintii maxaa ducada lagaga aqbalaa oo inaga nalooga aqbali waayey wuxuu yidhi weligii afkayga ma gelin luqmad xaaraan ah waxaana laga soo wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi jilkii quutaa xaaraan naar weeyaan mudankiisa ee allaynu ka magan gallay shirar ku koray xaaraan allabaynu ka magan gallay bullooyin laga dhistay xaaraan iyo gawaari laga gatay xaaraan iyo sadaqo laga baxshay xaaraan muslimiintoy wallaahi faqriga baa ka wanaagsan maal uu qofku ku kasbado ku caasinta alle ee taasi ha ogaadeen kuwa hamigoodu yahay inay lacag soo gasho siday doontaba ha ku soo gashe ha ilaawina dadow xisaabta alle ha ilaawina inaad hortagi doontaan allah ha ilaawina miisaanka camalada aakhirada ha ilaawina naarta iyo waxa cadaab yaal haddii aad caqli leedihiin ha ilaawina in kelmadiina qaadka aad gacan ka geysanaysaan dembi iyo dulmi ee alle ka cabsada dadow alle ka baqa dadow ogaada alle dadow ogaadana in alle idinkala xisaabtami doono xoolaha oo dhammi oo maalka kiisa xalaasha ahi waa xisaab kiisa xaaraanta ahina waa ciqaab iyo cadaab laisku cadaabayo naarta jahannamo allaynu ka magan gallay abubakar asidiiq radia allaahu canhu ee ahaa ganacsado aamin ah ka dhisa xoolihiisa masaajid ka abaabula ciidamo mujaahidiinahoo diinta alla filisa mar baa waxaa cunto u keenay adeegihiisii saa markii uu cunay buu weydiiyey meesha uu ka keenay wuxuu yidhi nin aan faal u dhagay waagii jaahiliyada islaamka ka hor lacag iiga hartaday ahayd saa abubakar wuxuu yidhi balaayo kugu dhacday oo inta istaagay iska soo masajiyey wixii calooshiisa ku jiray oo dhan eedadahu iska ilaalaya inaad cuntaan xoolo xaaraan laga shaqaystay sida qaad sigaar iyo wax la mid ah warkan inta xaaraanta dala yidhaahda xaggee wax ka helayaa waxaanu leenahay iska fiiri waxa aad birrito alla la hortegi doonto walaalkay qaad cunka ahow walaalkay qaadka iibiyow ama walaashay qaadka iibisow walaalkay qaadka keenow walaalkay guri ama gaadiid ka kireeya qaad iibiyaha kadib markii aad dhegaysateen oo idin caddaatay ogaateenna xukunka iyo waxa ay diinta islaamku ka qabta qaadka aadna ogaateen waxyeelooyinka qaadka ee caafimaad iyo dhaqan iyo dhaqaale iyo dhibaatooyinkiisa dhanka bulsho ma tihin kuwa iska daynaya si aad u xafidaan naftiinna iyo maalkiinna iyo caqligiinna diintiinuna idinku nabad gasho taasi waa taan rajaynayno waxaynuna alla ka baryaynaa inuu idinku caawiyo waxaynu hadalkeena ku soo gumaanidii halahaado dhammaan ammaanaha mahadaha hoggaansanka ka dambaynta maqalka adeecidda allah rabbiga umanka dad jin iyo dhammaan waxa jira waa hay-adda islaamka ee gargaarka soomaaliya oo idin sugootinaysa walaalayaal oo idin leh assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh